shirkan jaraa'id ee Muqdisho ay ku qabteen ururka haweenka qaranka Soomaaliya mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan ayaa waxa ay tilmaameen inay qaadaceen shirweynaha ay iclaamisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Batula Sheekh Axmed Gaballe gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ayaa waxay eedeyn u jeedisay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya. maanta oo ay bisha Maars tahay 3 sanadka 2019 shir ay yeesheen guddiga fulinta ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo wada tashi ay la yeesheen ururada haweenka ee dowlad goboleedyada dalka waxa ka soo baxay go'aamo ku saabsan in ay u cadeeyaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed inay qaadaceen oo ay ka soo horjeedaan shirka ka dhici doona magaalada Muqdisho ee ah caasimadda haweenka afarta bisha oo biri ah sanadka 2019 shirkaas oo lagu magacaabay shirweynaha qaranka haweenka Soomaaliyeed oo ay wado wasiiradda dowladda federaalka ee haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka u qaabilsan oo ay ku magacawday shirka qaranka haweenka Soomaaliyeed in la adeegsaday magaca haweenka oo aysan ahayn shir haweenka qaranka Soomaaliyeed loo qabtay oo uu yahay shirkaasi shir loo qabtay dad dana gaar laga leeyahay iyo dad maxalliye gaar ka shaqeeya shirkaas waxa lagu qaadacay in haweenkii Soomaaliyeed oo u soo halgamay dalka oo ka shaqeeya dowlad goboleedyada oo ka shaqeeya dowladda federaalka ah oo u gobol xaaray dhismaha qaranka Soomaaliyeed oo u dhintay oo loo dilay oo u eedoobay oo caruurtoodii lagu dilay inaan haba yaraatay wax tala ah laga siinin shirka waxa uu ku saabsan yahay waa shir aanan ogeyn oo aanan la socon nalaga marti qaadin nalaga casumin nalagala tashanin oo ah mid dana gaar aan u aragnay in lagu wato waayo hadda koor waxaan qabanay ururka haweenka qaranka bishii November ee sanadkii hore 2018 28 magaalada Xamar waxaan ku qabanay shirweyne looga hadlaayay sida haweenka Soomaaliyeed ay qayb uga qaadan lahaayeen dhibaatada dalka ka jirta iyo soo dabaalida qarannimada ummadda Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka fikradaha xaq jirka ah si haweenku qaybta ay ku leeyihiin ay u qaadan lahaayeen. dhanka kale Batula Sheekh Axmed Gaballe ayaa waxa ay tilmaantay in xiriirka kala duwan oo ay la sameysay ururada haweenka ee dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen inaanay ka qayb galin shirweynaha ay iclaamisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ay sheegtay in ururka haweenka qaranka xiriirka uu u jaray wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya haddii marka haweenka Soomaaliyeed wasiiraddu aysan ictiraafsanayn halgankooda aysan ictiraafsanayn waxtarka ay dalka u leeyihiin aysan ictiraafsanayn oo ay ku soo dhacday inay u noqoto wasiir waxaan u sheegaynaa wasiiraddu inaysan ku matali karin haweenka Soomaaliyeed magacoodana ku adeegsan karin inay xaqirto xuquuqdoodana aasto waxaan la dagaalamayay waxaan lahayn ragga iska dhiciya oo waxaan lahayn xuquuqdiina dhacsada laakiin waxa soo baxday naaga ragga ka daran oo xuquuqda ka soo horjeeda oo gabdhaha dulminaya oo xuquuqdooda doodsiinaya. Xasan Kahye, Som News TV, Muqdisho.